كل يوم مالينا دي ملا سؤال بيوديني سهل waxaan doonayaa inaad wax ka tiraahdo kulanka la yeelatay guddiga golaha wakiilada deegaanka runtii guddidan waanu ballansanayn saakaan ballansanayn inaanu kolleyba isweydiino raayiyana isdhaafsano kolley xeer baa dee baarlamaanka ku jira xeerka baarlamaanka imika la keenay iyaga gacantooda ku jira bal inaanu kolley iska weydiino oo maaragtay aan dib u wada eegno runtiina gacmo furan bay igu soo dhaweeyeen guddigoodna waa dee dad wada environmentalist ama maaragtay deegaanka danaynaya biidni ilaahna waanu ballansanahay wada shaqayn ballaaranna waa naga dhaxaysaa maadaama ay guddidii khayraadka ay yihiin ee dalka Somaliland guddidaasi oo dee guddi baarlamaana aad iyo aadna ragga ku jira maanta waa rag soo wada jeeda oo markaad u fiirsato waa wada rag khibrad fara badanna deegaanka u leh marka ilaahay dee waxaan ka rajaynayaa xeerar saddex xeer bay istaba socdeen saddexda xeerba inay sidii ugu wanaagsanaa ay ku dhammaadaan biidni ilaah wasiir ma soo xal qaadeen arrinta seeraha wasaaradda deegaanka ugu horeeyay muwaadiniin wasaaradda xanaanada xooluhu xeerarkan ma taabanaya kuleedo anigu dee ma garan karo wax muran oo martay seeraha runtii ka taagan seeruhu waxa weeyaan dee marka dee wasaaraddeeda hoos yimaado waa dhirtii daaqaadna horta marka ugu horeysa dhirta iyo daaqa marka kow tiraahdo wixii dambana dee way ku wada daba jireen environmentka ee dee martay deegaanka guud laakiin marka dhir la yiraahdo dee waa anaga daaq marka la yiraahdo waa anaga marka daaqii iyo dhirtii labadaydu mar haddayna hoos imanayaan dee waxaan kala shaqaynaynaa aanu isdhex galayna waa wasaarada kale aanu isdhex galaynaa beeri baanu isdhex galaynaa xoolihii baanu isdhex galaynaa xanaanada xoolaha aanu isdhex galaynaa biyihii baanu isdhex galaynaa marka wasaarada kale aanu kala sii wada shaqaynaynaa laakiin caam ahaan markay dee dhir timaado oo kaymaha iyo markay daaqii timaadaba dee labadaba wasaaradda ay hoos wasiir waxaa jirtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda beeraha iyo wasaaradda deegaanka inay markuu heshiiyeen saddexda wasaaradood go'aan ka soo saareen xaaladda deegaanka maxay la hadda ka hirgalay والله سوى ناكسم وانو ودنا وزارة هي جالسة ودنا سوى ناكسم وانو ودا شقينا ويجد وانو كودا براروكسنا مشاكل كيالا ذلك معركة مالن بمالن تكسي دم بس كسي كرلاية جد جيو وانو كبراروكسنا هاي وحيامها هم كسر ودا صاري وحكم ذا إن أنو عاد وعيقلين فربنا وسميني إن أنو الله هذا اللي دموين كي يوم معركة قبل الذي إلى هير معركة تولا الله هذا اللي إلى معركة مدح رقمات ذي الله هذا اللي إن حاله كان ما أنت تاجين عندك عنت لجوها يوم إحنا لكلا خبطه أنت يدا كل شغال الله هردن إن ده شعب كأي كتير ما ده لهانشوا إن الشعب كتريما إنه يقوليه هدي قف كأموادن كأنو درين سنين إنه ليه هو أما وهذا البكل ليه هاي أما وتلا بكل ليه هاي دانو بدرين سنين تاسع مشكلة ده ما كل درين كده كل يوم كقربة يصعد عين أو قربة يصعد قادمين وحنو كل شوين هنا إن الوحفر بدن أنو كودا شقينا كدولة دهان البرلمان كا ما يو قبلا ده إنه نسوي نقودا شقينا يوم ده حدا قبلا ده يمكن سوي وين نورا شقيسة هدانو نهاي بحد ديجان runtii si weyn bay noola wada shaqeeyaan maanta siyaaraha ahaadaan dul xidhaha ahaadaan hal ahaadaan maaragtay ugaadha lagu waarsanayo ee sharci darrada lagu dhoofsanayo ahaadaan dee annagana hawl weyn baa noo taala saacatul wasiir tiimka go'aanka soo saarteen oo go'aankaasi go'aan lagu xakameeyay xaaladda deegaanka dadkii deegaanka ay xaalfin jiray wax baqashaa ma ka qaaday arrintaas oo soo dhacay ku yimid xaalfin deegaanka ده محيو هو إيمان وياه لو شرعي على الإسلام سنة صدقوا شرعي مالها وشروع مالها تاجن تذكر ده واحد برنامج نادي نكلا دنبي ده شروع مالهم البي ما يسوي سعرين ده شرعي بانو أنو حتى كل شقينا يمك 498 ليرة هذا كل شقينا ده شرعي قاس وحاران تمينة يا وحفر بدر marka dadku waxay imika caadeysan in aan sharciga u hoggaansameyn laakiin marka sharciga lagu dabaqo ee la soo qabtay lagu xidhay lagu ciqaabay de kharash ay ku bixiyaan jeebkooda laga xanuujiyo markaas oo kala dabcan uu hoggaansamaan laakiin waxa ka sii qurux badan de marka horeba adigu isxilqaan oo ila muwaadin baa tahay qof muwaadin tahay de isxilqaan oo adigu naftaada garo wixii qalad kuga iyo wax kale sax kuga de saaraha la xidhay de maaragtay uu dalku leeyahay ee la wada daaqi jira umada ka dhaxeeyay de ninka xidhay soo ma qaldana
dee qofkaas oo kale dee qofka muwaadinkana sharci dee tallaabo isla ka qaaday annaguna tallaabaanu ka qaadaynaa degmooyinkii ay ku noolaayna dee tallaabay ka qaadayo laakiin inaynu dareen wada yeelano oo meel uga soo wada jeesano oo gidigeen aynu tijaah wada qaadno jiha wada qaadno ayaa loo baahan yahay marka daryeelka deegaanka laga hadlayo baahda miidiyaduna aad bay u mahadsan